qisadani waa dhab waxaana inala wadaagay gabar kamid ah asxaabta ku xiran aayaha nolosha TV. gabadhani oo magaceeda inoogu soo koobtay ayaa waxay tiri anigoo ardayad ah isla markaana dhiganaya iskuul ku yaala magaalada Boorame oo ku jira maalmo aad u qurux badan ayaa waxaynu si kadisa isku baranay wiil ka yimid isagu dhanka iyo Hargeysa. waxa iskeen baray ayay tiri wiil ay saaxiibo ahaayeen anigana aan asxaab ahayn. isbarashada waxa inoo dheeraabay tiri in wiilkaasi ina dhexmaro xiriir haasaawe oo marba ka dambaysa si xoogaysanayay xawli aan ku qiyaasay halbeegiisa kan dabaysha oo kale ayuuna ku socday xiriirkeenu waana tan sababtay bay tiri inaan u qaado jacayl si fudud ugu baahay xidid kasta oo jirkayga kamid ah. haddaba jacaylku wuxuu mararka qaar ku bilowdaa aragtida ugu horeysa oo qura sidoo yiri abwaan hore balan maaha jacaylku iyo bandhig la isugu baaqay waa isha biligtaada wax un bogaaga ku beerma. muddo markaynu wada soconay oo xiriirkeeni noqday bay tiri sida dayaxa oo kale mid aan sacbada lagu dabooli karin ayaa waxa bilowday bay tiri duufaantii ina kala dhantaashay. waxaan ka dareemay bay tiri wiilkii isbedel aad u ballaaran iyo inuu ka gaabinayo xiriirkii dhankayga ahaa ilaa uu igu dhashay dareen ah inuu gabdho kale la sheekaysto. haddana maanan fududaan ee waxaan isku dayay bay tiri inaan dhowr mar kala hadlo oo uu iga shaafiyo cabsida iyo isbedelka aan dareemayo waxa sababay laakiin ma ahayn mid u diyaarsan inuu iga qanciyo ilaa markii dambe uu ii sheegay in aan iska ilaawo wax kasta oo wanaag ah oo ina dhex maray xiriirkeenana aynu ka weecino jihadii jacaylka. arrintaana aad ayaan uga naxay waxay igu noqotay filawaa iyo wax aan iga daadegin waxaana igu yeeray wiishkii walwal iyo walbahaar ayaan martiyay waxaana aad u kala fogaanay waxbarashadaydii fikir ayaan har iyo habeen joogteeyay waxaana isweydiiyay bay tiri miyuu been kula jilaayay. xaaladda ayaa igu adkaatay haddaba markaynu muddo sidaa ku kala maqnayn ayuu isoo wacay bay tiri isagoo igu qancinaya in qalad ka dhacay haddana uu diyaar u yahay inuu wax kasta oo dhacay iga raali geliyo. inkastoo aan jeclaa haddana anigoo go'anaya xanuunka dhaawacyadii uu ii geystay ayaan ka diiday bay tiri dalabaadkiisii. soo noqnoqosho badan iyo dhambaale jecel oo uu igu beerjilicsanayay ugu dambeyn wuxuu ku guulaystay bay tiri inuu mar kale hanto qalbigayga weliba si ka daran sidii hore isagoo ka faa'iidaysanaya jacaylkayga. waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya. waan u dabcay waana soo dhawaystay laakiin markaynu muddo waqti wada qaadanay waxa u soo baxay leen dhanka dibadda ah kadibna wuxuu u baqoolay dhanka iyo dalka Ethiopia waxaana ku ballanay inaan isaga uun sugi doono inta noloshayda ka dhiman isagana uu ii soo dadaali doono. laakiin waxaynu qadka internetka ka wada xiriirnaba mar kale ayuu qalbigayga jibiyay isagoo igu wargeliyay inuu sameystay jacayl cusub anna ay tahay wadada ugu quruxda badan inaan iska iloobo kana haro raadkiisa. taana waxay mar kale igu noqotay bay tiri uur ku taalo iyo nabar xanuun badan waxaan xanuun jacayl la liicaba waxaan go'aansaday bay tiri inaan iska ilaawo dantaana ii run sheegtay anigoo tirtira wax kasta oo kontakti aan la lahaa wiilkaas. waxaana u haajiray bay tiri magaalada Muqdisho oo aan hadda ku noolahay si aan uga fogaado wax kasta oo i xasuusin kara noloshaydii hore. waxaan ahay qof shaqaysta muddo kadib waxa ay soo wacay tiri wiilkii oo iga codsanaya inaan mar kale dib u midowno. ma aqaan qof lambarkayga soo siiyay iyo halkuu ka keenay laakiin waxa la ii sheegay in leenkii uu ka qarxay oo ku laabtay Somaliland. inkastoo jacayl xad dhaaf ah aan u qaaday haddana way ugu adag tahay inaan mar kale aamino. asxaabta aayaha nolosha TV waxaan idinkaga fadhiyaa taladiina mid ayaana u aqrin doonaa talooyinkiina.